Filimkan wuxuu ku bilaabanayaa wiil yar oo lagu magacaabo Calvin, kaas oo ku nool xarunta agoonta Chesterfield ee Ameerika. Calvin wuxuu leeyahay laba saaxiib oo aad ugu dhow, Rajan iyo Marv. Saddexdooda waxay jecel yihiin inay kubadda kolayga ku ciyaaraan barxadda hore ee xarunta agoonta. Subax iyagoo ciyaaraya, Otis ayaa la yimid dhowr ka mid ah asxaabtiisa. Otis waa mid dhib badan, sidoo kale ku nool xarunta agoonta. Wuxuu jecel yahay inuu dhibaateeyo carruurta kale. Wuxuu Calvin kula tartamayaa ciyaar kubadda kolayga si uu u helo fanaanada kubadda kolayga ee uu jecel yahay. Calvin aad uguma fiicna kubadda kolayga, sidaas darteed labadiisa saaxiib waxay isku dayayaan inay ka hor istaagaan inuu aqbalo tartanka. Laakiin Calvin waxaa dhiirigeliya xidigaha kubadda kolayga ee uu jecel yahay. Calvin wuu aqbalay, si kastaba ha ahaatee ciyaartu way bilaabmatay. Calvin si xun ayuu u dhibtooday maadaama uu aad u gaaban yahay. Wuxuu seegayaa darbooyinka fudfudud. Otisna si fudud ayuu u maamulayaa ciyaarta. Calvin wuu guul dareystay, sida ku cad heshiiska waa inuu dhiibaa fanaanada uu jecel yahay, weliba Otis hortiisa. Otis ayaa jeexay fanaanada isagoo ceebaystay Calvin, qalbigiisana jebiyay. Intaas kadib waxaa aragnaa Mr. Bellman oo carruurta u xil saaray inay ninac ku iibiyaan banaanka garoonka kubadda kolayga si ay lacag ugu ururiyaan agoonta. Calvin iyo carruurta kale waxay bilaabeen inay ninac ku iibiyaan meel u dhow albaabka laga galo. Waa markaas markii Calvin uu arkay tababare Wagner, tababaraha kooxda kubadda kolayga ee Knights, isagoo ka baxaya garoonka. Calvin ayaa u soo dhowaaday oo isku dayay inuu ka iibiyo ninac, laakiin tababaruhu wuxuu ku jiraa xaalad niyad xumo sababtoo ah kooxdiisu waxay la kulantay guuldarro adag. Wuu diiday oo wuxuu bilaabay inuu iska tago. Calvin ayaa mar kale joojiyay oo wuxuu u sharaxayaa in lacagta loogu talagalay agoonta. Tababaruhu wuxuu soo jeediyay inuu siiyo lacag caddaan ah, laakiin Calvin wuu diiday, isagoo sheegay inuusan ogeyn in Mr. Bellman uu si sax ah u isticmaali doono lacagta. Isagoo la dhacsan, tababaruhu wuxuu weydiiyay Calvin inuu weligii arkay Knights oo ciyaaraysa ciyaar toos ah. Calvin ayaa si murugo leh u yiri maya, ma awoodaan inay tikidhada bixiyaan. Hadda Calvin wuu diiday inuu lacagta si daacad ah u qaato. Tababaruhu wuxuu go'aansaday inuu abaalmariyo. Wuxuu Calvin siiyay 4 tikidh oo bilaash ah ciyaarta xigta ee Knights. Calvin aad buu ugu faraxsan yahay. Intaas kadib waxaan aragnaa xarunta agoonta, halkaas oo dhowr lamaane ah ay yimaadeen si ay u helaan carruur ay korsadaan. Calvin wuxuu qabaa rajo, wuxuuna aaminsan yahay in maanta ugu dambeyn uu qof dooran doono. Laakiin Otis wuxuu burburiyay rajadii uu qabay, isagoo u sheegay in waalidku ay korsadaan carruur yaryar oo kaliya, isla markaana ay yihiin kuwa gaboobay. Calvin aad buu u niyad jabay. Maalintii xigtay, deeq dhar iyo agab la bixiyay ayaa yimid xarunta agoonta. Intii ay kala sooceysay, Calvin wuxuu helay kabo caddaan ah. Gabadhii deeqda keentay ayaa u sheegtay in kabahani ay mar ahaayeen kuwa uu lahaa Michael Jordan. Calvin waa taageero weyn oo Michael Jordan ah, sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu kabaha haysto. Laakiin si lama filaan ah, Otis iyo asxaabtiisa ayaa mar kale soo muuqday. Kabaha ayay ka qaateen Calvin, waxay isku xireen xargaha kabaha, waxayna ku tuureen fiilooyinka korontada, iyagoo ka saaray meel dheer. Habeenkaas duufaan xooggan ayaa kusoo da'day. Calvin ma seexan karo, mana joojin karo ka fikirka kabaha. Isagoo go'aansaday inuu dib u helo ayuu si dhuumasho ah ugu baxay roobka, isagoo wata labadiisa saaxiib. Calvin wuxuu fuulay geed, wuxuuna gaaray kabaha. Si lama filaan ah, hilaac ayaa ku dhacay fiilada korontada. Calvinna dhulka ayuu ku dhacay, isagoo weli haysta kabaha. Wax dhaawac ahna ma soo gaarin. Calvin wuxuu arkay kabaha oo ay ka imaanayaan iftiin la yaab leh. Waa markaas marka uu ogaaday in kabahana ay yeelan karaan awood. Maalintii xigtay, Calvin wuxuu yimid garoonka isaga iyo asxaabtiisa. Waxay wateen tikidhyadii uu tababaraha siiyay, waxayna go'aansadeen inaysan hal mar iibin doonin nacnaca, sababtoo ah maanta waa maalin u khaas oo daawashada ciyaaraha kubadda kolayga oo toos ah. Otis wuxuu ogaaday qorshahooda, wuxuuna isku dayayaa inuu cabsi geliyo Calvin, wuxuuna ku hanjabay inuu Mr. Bellman uu wax walba u sheegi doono. Calvin wuu argagaxay, laakiin si dhaqso ayuu u fekeray si caqli leh, wuxuuna siiyay Otis mid ka mid ah tikidhada si uu ula daawado ciyaarta. Otis wuu oggolaaday. Dhowaana dhammaantooda waxay si wadajir ah u galeen garoonka, iyagoo faraxsan oo la yaaban inay ku raaxaysanayaan daawashada ciyaarta. Markii nasashada la gaaray, xidiga Tracy ayaa garoonka la joogay tababare Wagner. Qabanqaabiyaashu waxay go'aansadeen inay dadka madadaaliyaan iyagoo ciyaaraya. Waxay ku dhawaaqeen bakhtiyaa nasiib. Taageere nasiib leh oo ka socda daawashada ayaa heli doona fursad uu kula ciyaaro Tracy. Bakhtiyaa nasiibka waa la soo saaray. Lambarka tikidhka Calvin ayaa la doortay. Calvin aad buu u faraxsan yahay, laakiin Otis ma uusan u dulqaadan karin inuu arko Calvin oo faraxsan. Maseer awgiis wuxuu isku dayayaa inuu tikidhka ka xoogo Calvin, isagoo si degdeg ah u fikiraya. Wuxuu si toos ah ugu orday garoonka kubadda kolayga. Ciyaartii u dhaxaysay Tracy iyo Calvin ayaa bilaabatay. Markii hore, Tracy wuxuu ula dhaqmay Calvin sidii ilmo yar, wuxuuna u oggolaaday inuu si ula kac ah u dhaliyo si uu dadka u madadaaliyo. Laakiin si dhaqso ah, wax la yaab leh ayaa dhacay. Calvin wuxuu sii wadaa inuu mar kale dhaliyo. Hadda Tracy wuxuu bilaabay inuu si dhab ah u qaato ciyaarta, wuxuuna u ciyaarayaa si buuxda. Si kastaba ha ahaatee, Calvin aad buu u dhaqso badan yahay. Kadib, Calvin wuxuu sameeyay booditaan sare oo aan la rumaysan karin, wuxuuna mar kale ka dhaliyay Tracy. Garoonka oo dhan ayaa la yaaban. Ilmo yar ayaa hadda ka sarreeya xidig caan ah. Dadka way aamini la'yihiin, Tracyna wuu la yaaban yahay, gaar ahaan sida Calvin uu u booday. Waxaasoo dhan waxay u dhacayaan sababtoo ah waa kabaha duuga ee Michael Jordan ee uu Calvin xiran yahay. Maalintii xigtay, tababare Wagner wuxuu yimid xarunta agoonta isagoo la socda maamulihiisa. Waxay rabaan inay weydiistaan Mr. Bellman oggolaansho si
si uu Calvin u siiyo hal maalin oo fasax ah si uu ula ciyaaro kooxdooda. Bellman markii hore wuu diiday, laakiin markii lacag loo sheegay si dhaqso ah ayuu u bedelay go'aankiisa, wuuna oggolaaday. Markii Calvin iyo asxaabtiisa ay maqleen warka, aad bay u faraxsanaayeen. Calvin hadda wuxuu la ciyaari doonaa ciyaartoyda kubadda kolayga ee heerka caalami. Calvin iyo asxaabtiisa way ogyihiin runta awoodda Calvin inay sabab u tahay kabaha. Calvin wuxuu u sheegayaa inay sirta qariyaan, laakiin Oakes wuu maseeray, mana fahmi karo sida Calvin uu si lama filaan ah ugu fiicnaaday kubadda kolayga, isagoo og markii hore inuu si fudud ugu adkaan jiray. Waa markaas marka Oakes uu ogaaday sirta awoodda Calvin inay tahay kabaha. Maalintii xigtay Calvin wuxuu yimid ciyaarta. Markii Tracy uu arkay, wuxuu u muuqday mid xanaaqsan. Saaxiibadiis ayaa si aan kala joogsi lahayn ugu qoslaya, sababtoo ah waxaa ka guuleystay ilmo yar. Tababar Wagner wuxuu siiyey Calvin funaanada kooxda iyo kabo cusub, laakiin Calvin wuxuu weydiiyey inuu ku ciyaari karo isagoo xiran kabihiisii hore. Tababaruhu danka ma lahan arrintan, waxa kaliya ee uu rabo waa in Calvin uu ciyaaro, sababtoo ah garoonka oo lasoo buux dhaafiyey waxay la macno tahay lacag badan. Ciyaartu way bilaabatay. Markii la gaaray nasashada, kooxda Nats si xun ayay u guuldareysanayaan. Calvin weli sooma galin garoonka. Calvin ugu dambeyntii si geesinimo leh wuxuu weydiistay tababaraha inuu u oggolaado inuu ciyaarta galo. Tababaruhu wuu u oggolaaday. Intaas kadib kooxdu waxay ku dhowdahay inay guuldareysato. Calvin wuxuu soo galay ciyaarta, laakiin daqiiqad kadib wuxuu u calaamadeeyay waqti nasasho, sababtoo ah wuxuu ogaaday inuusan xirnayn kabihiisii hore, isagoo ka baqaya inuu guuldareysto la'aantooda. Calvin wuxuu u orday qolka labiska, wuxuu dib u xirtay kabihiisii oo mar kale ayuu garoonka soo galay. Kadib wax walba way isbedeleen. Calvin wuxuu si kaliya rajada ugu soo celinayaa kooxdiisii guuldarrada u dhaweyd. Si buuxda ayuu u maamulayaa kooxda kasoo horjeeda. Dadkii badnaa ayaa u sare istaagay, iyagoo si xamaasad leh ugu sacabtumaya. Saaxiibadii Calvin aad bay ugu faraxsanaayeen. Ciyaarta kadib, tababaraha iyo maamulaha Nats ayaa heshiis la saxiixday Calvin, taasoo keentay inuu kooxda kusoo biiro dhowrka kulan ee soo socda. Calvin wuxuu ku laabtay xarunta agoonta si uu alaabtiisa u soo qaato, isagoo u baxaya si uu ula safro kooxda ciyaaraha soo socda. Waa markaas markii Mr. Bellman uu soo dhowaaday, isagoo si lama filaan ah ula dhaqmaya si naxariis leh, weliba taageero leh, asigoo si xeeladaysan kalsoonidiisa u kasbanaya, isagoo rajeynaya in Calvin uu u doorto inuu noqdo ilaaliyihiisa sharciga. Laakiin Calvin waa aqli badan yahay, kuma dhaco naxariista been abuurka ah ee Bellman, wuuna baxayaa isagoo waxba oggolaan. Waxyar kadib, Calvin waxaa loo xil saaray inuu qol la wadaago Tracy laftiisa. Tababar Wagner wuxuu Calvin si buuxda u hoosgeeyey mas'uuliyadda Tracy, isagoo ku qasbay labadooda inay wada joogaan. Tracy dhab ahaantii kuma faraxsan arrintan, laakiin Calvin aad buu ugu faraxsan yahay. Wuxuu la degan yahay xiddig kubadda kolayga. Tracy wuxuu u baxay inuu la kulmo saaxiibtiisa, halka Calvin uu dib ugu soo laabtay qolka hoteelka. Calvin oo ku faraxsan in aan la kormeerin ayaa si waalan ugu ciyaaraya qolka, isagoo dalbanaya cunto badan, wax walbana cunaya, gabi ahaanba qashinkan ku shubaya qolka. Markii Tracy uu la soo laabtay saaxiibtiis, aad buu u naxay, qashinkii oo meel walba yaala. Calvinna dhulka ayuu jiifaa. Waxay bilaabeen inay qolka nadiifiyaan oo isku diyaariyaan inay seexdaan, laakiin markii Tracy uu isku dayay inuu seexdo, Calvin wuxuu bilaabay inuu quuriyo. Tracy habeenkii oo dhan ma seexan karo. Maalintii xigtay waa maalintii ciyaarta. Tracy si cad ayuu u daalan yahay, isagoo hurdo ku dareemaya garoonka dhexdiisa. Calvin si kam ah ayuu tababaraha ugu sheegay xaaladda quurada. Markii tababar Wagner uu taas maqlay, tababaruhu wuxuu Tracy ugu yeeray mid aan taxaddar iyo mas'uuliyad aan lahayn, isagoo xasuusinaya in ciyaaryahanka xirfadlaha uu u baahan yahay inuu helo hurdo ku filan. Wuxuu Tracy siiyey digniin, wuuna iskaga tagay, taasoo Tracy ka dhigtay mid niyad jabsan oo xanaaqsan. Waxaan aragnaa Calvin oo ciyaaraya ciyaarta kadib kulan kooxo kala duwan. Marar badan wuxuu ku guuleystaa ciyaaraha oo dhan. Calvin wuxuu noqday xiddig soo koraya, magaalada oo dhanna way taqaanaa magaciisa. Wuxuu ka soo muuqdaa kanaalada wararka, wuxuu bixiyaa wareysiyo, wuxuu ku guuleystaa abaalmarino, wuxuu helaa caanimo weyn. Asigoo caan ah, haddana Calvin ma ilaabo asxaabtiisa agoonta, wuxuu siiyaa hadiyado, wuxuuna isku dayaa inuu farxad geliyo. Kadib hal kulan, Calvin wuxuu kusoo laabtay agoonta, wuxuuna la hadlay saaxiibkiis, kaasoo si dhab ah ugu faraxsan inuu arko heerka uu gaaray. Calvin markii hadlayeen, Oakes wuu maqlay, wuxuu isku dayayaa inuu qabsado kabaha Calvin, laakiin ka hor inta uusan waxba sameyn, Bellman ayaa soo galay oo ku qeyliyay Oakes, isagoona banaanka u buriyay. Bellman wuxuu doonayaa inuu hubiyo in Calvin uusan weligiis dhib kala kulmin Oakes, sababtoo ah guusha Calvin waxay keenaysaa faa'iidooyin waaweyn isaga iyo xarunta agoonta labadaba. Kadib, Calvin wuxuu mar kale la baxayaa kooxda si uu u sameeyo safar kale oo ciyaaro ay dheelayaan. Mar kale Tracy waxaa loo xil saaray inuu noqdo qofka ay isla joogaan. Markan Tracy wuxuu go'aansaday inuu istaago farmashi si uu daawo u iibsado, isagoo rajeynaya inay ka caawin doonto inuu si nabad ah u seexdo. Wuxuu watay gaarigiisa, isaga oo aanan ogeyn in Calvin uu raacay oo uu ku fadhiyo kursiga dambe. Gudaha farmashiga, Tracy si kam ayuu u qaatay kaniiniyada hurdada halkii uu qaadan lahaa kaniiniyada xasaasiyadda. Waxay ku soo laabteen gaariga, isla markii uu Tracy isku dayay inuu dhaqaaqo, daawadii ayaa qabatay, uuna hurday. Calvin wuu argagaxay, ma doonayo in tababar Wagner uu ogaado inay habeenkii xilli dambe ay baxeen. Calvin wuxuu qaatay go'aan khatar ah, wuxuu ku fadhiistay kursiga darawalka, isaga oo aanan lahayn waayo aragnimo darawal. Calvin
si xeelad leh ayuu u maareynayaa inuu wado gaariga isagoo ka gudbaya caqabadaha, laakiin wuxuu dhib kala kulmay inuu xakameeyo gaariga ilaa ugu dambeyntii si nabad ah u gaaray hoteelka. Maalintii xigtay, Tracy wuxuu ogaaday in Calvin la ganaaxay sababtoo ah dhacdadii gaari wadista habeenkii dambe. Tracy wuxuu dareemayaa walwal, wuxuuna aaday Calvin si daacad ah ayuu u raaligeliyay, isagoo og in ganaaxa uu sabab u ahaa. Ciyaarta kadib, Calvin wuxuu mar kale ku laabtay agoonta. Dhowr lamaane ayaa yimid iyagoo rajeynaya inay helaan ilmo ay korsadaan. Markaan lamaane kasta waxay rabaan Calvin, laakiin Mr. Bellamy wuxuu u soo bandhigayaa waalidiinta dooq aan ku habbooneyn. Calvin wuu diiday dhammaantood. Wuxuu go'aansaday inuu doorbido inuu la joogo agoonta asxaabtiisa halkii uu la noolaan lahaa dad uusan ku kalsooneyn. Dhanka kale, Marv wuxuu bilaabay inuu dareemo maseer sababtoo ah Calvin wuxuu noqday mid guuleystay, caan ah, qof walbana uu doonayo, halka Marv weli la iska indho-tirayo. Maalintii xigtay, Calvin wuxuu Tracy ku booqday gurigiisa. Wuxuu Tracy u sheegay sida uu xun yahay sababtoo ah Marv wuxuu dareemayaa in aan la rabin maadaama aysan jirin waalid doonaya inay korsadaan. Calvin sidoo kale wuxuu xusay in imtixaanadooda ay soo socdaan. Tracy wuxuu bilaabay inuu Calvin ka caawiyo xisaabta. Tracy wuxuu soo jeediyay in Calvin uu waco Marv oo uu casuumo. Calvin wuu sameeyay. Dhawaan Marv ayaa ku soo biiray. Markii ugu horreysay muddo kadib, Marv wuu qoslayaa, wuxuuna waqti la qaatay iyaga. Intaas kadib, Calvin wuxuu ku laabtay xarunta agoonta, wuxuuna asxaabtiisa u sheegay dhibaatooyinka qoys ee Tracy. Wuxuu sharaxayaa in Tracy ay ka fog yihiin waalidkiisa. Saaxiibada Calvin waxay siiyeen fikrad, waxayna u sheegeen Calvin inuu ka caawin karo Tracy inuu dib ula midoobo waalidkiisa. Maalintii xigtay, Calvin wuxuu mar kale booqday Tracy, laakiin markan wuxuu sameeyay qalad weyn. Isagoon Tracy weydiin, Calvin si qarsoodi ah ayuu aabaha Tracy ugu martiqaaday guriga. Markuu Tracy ogaaday, aad buu u xanaaqay. Wuxuu ku qayliyay Calvin, si adag ayuu u canaantay, kadibna wuxuu ka saaray guriga. Dagaalkan kadib, Knights waxay bilaabaan inay guuldareystaan. Ciyaarta kadib, xiisada u dhexeysa Tracy iyo Calvin waxay saameysaa kooxda oo dhan. Waxay joojiyeen inay isla hadlaan, xiriirkii oo burburay awgiis. Kooxda oo dhan waxay bilaabeen inay kala daadato. Aan ku laabano xarunta agoonta. Waalidiin badan ayaa yimid si ay u korsadaan Calvin. Mar labaad, Calvin wuxuu aaminsan yahay in midkoodna uusan ku habbooneyn. Bellamy wuxuu soo jeediyay fikrad cusub. Wuxuu u sheegay Calvin inuu casho la tago oo uu arko sida ay dareemayaan. Ka hor inta aysan bixin, Calvin wuxuu kabihiisa gaarka ah u dhiibay Marv si uu u ilaaliyo. Kadib markii Calvin uu baxay, wuxuu xirtay kabihii Calvin isagoo rajeynaya inuu u dhaqaaqo sida Calvin, laakiin waxba ma dhicin. Marv oo niyad jabsan ayaa eegaya sawirka hooyadiis oo ah xasuusta kaliya ee uu ka haysto, wuxuuna dareemayaa in gebi ahaanba uu niyad jabay. Waqtigaas, Oakes ayaa la soo muuqday asxaabtiisa iyo Mr. Bellamy. Bellamy wuxuu bilaabay in Marv uu weydiiyo kabaha. Markii Marv uu diiday inuu hadlo, waxay gubeen sawirkii hooyadiis oo ahaa xasuustiisii ugu dambeysay ee qaaliga ahayd. Marv oo qalbi jabsan ugu dambeyntii wuxuu u sheegay xaqiiqada ku saabsan kabaha, iyagoo kabaha ay hadda gacanta ku hayaan. Bellamy wuxuu la kulmay asxaabtiisii qamaarka, wuxuuna sharad weyn ka galay Knights. Bellamy wuu ogyahay runta, kabaha la'aantood Calvin inuusan si fiican u ciyaari karin. Haddii Calvin uu ku guuldareystana, Knights way khasaari doontaa. Isagoo dhoolla cadeynaya, Bellamy wuxuu wax walba ku sharad gareeyay kooxda kasoo horjeeda, asigoo aaminsan in markaan sixirkii Calvin uu ugu dambeyntii dhammaaday. Dhanka kale, waxaan aragnaa Calvin oo casho qoys cusub la jooga, laakiin mar kale si fiican uma dareemayaan. Wadahadalkan waa mid guuldareystay. Jawigan wuxuu noqday mid aan la isku fahmin. Calvin wuxuu ogaaday in qoyskani aysan ahayn mid ku habboon. Isla mar ahaantaana, Marv iyo Regan waxay waceen Calvin ka hor ciyaarta weyn, waxayna u sheegeen runta ah in Mr. Bellamy oo qaatay kabaha Calvin. Calvin oo cabsanaya ayaa si toos ah ugu soo laabtay xarunta agoonta. Calvin oo kaashanaya dhammaan carruurta agoonta ayaa ku guuleystay inay xirxiraan Bellamy. Oakes ayaa sidoo kale halkaas jooga, isagoo taagan dhinaca Bellamy, laakiin Bellamy ayaa si lama filaan ah ugu qeyliyay Oakes oo caayay. Oakes oo ceeb iyo bahdilaad dareemaya, ugu dambeyn wuxuu ogaaday runta. Waa waqtigii Oakes uu la safan lahaa Calvin. Wuxuu aaday keedka, wuxuu ka soo saaray kabaha qarsoon ee Calvin, wuxuuna dib ugu celiyay Calvin. Dhanka kale, Bellamy wuxuu wacay asxaabtiisii qamaarka, wuxuu ku amray inay joojiyaan Calvin wax kasta oo ay ku qaadato, laakiin way ku guuldareysteen. Calvin wuxuu gaaray garoonka. Intii uu socday, Bellamy wuxuu isku dayay inuu joojiyo isku daygii ugu dambeeyay. Calvin ayaa ka gudbay oo si toos ayuu ugu orday garoonka kubadda kolayga. Markii uu Calvin kor u eegay farqiga dhibcaha, Knights si xun ayay u guuldareysanayaan. Calvin wuxuu xirtay kabihiisa, wuxuuna galay ciyaarta. Mar kale ayuu bilaabay inuu xukumo garoonka, isagoo ka adkaaday kooxda kasoo horjeeda. Laakiin intii lagu guda jiray ciyaarta, ciyaartooy badan ayaa ku dhacday isaga, kabihiisuna way kala jeexmeen. Calvin oo la yaaban kabaha la'aantooda, wuxuu aaminsan yahay in ciyaartu ay dhammaatay. Waa markaas markii Tracy uu soo galay, wuxuu dhiirigeliyay Calvin, isagoo xasuusinaya in xirfadda aysan weligeed kabaha ku jirin, waxay ku jirtaa gudaha isaga. Isagoo ku kalsoon erayada Tracy, Calvin wuxuu xirtay kabaha cusub, wuxuuna ku soo laabtay ciyaarta, xitaa isagoo wadan kabaha mucjisada. Calvin wuxuu soo bandhigayaa ciyaar kubadda kolayga iyo ugu fiicneed noloshiisa, isagoo leh xirfad, kalsooni iyo qalbi. United u horseeday guul kama dambeys ah. Dadkii badnaa
badan ayaa farxad la dabaaldegaya. Kadib guushii, Calvin wuxuu sameeyay go'aan nolosha wax ka beddelaya. Wuxuu ku dhawaaqay inay dhammaatay u ciyaaristiisii Knights-ka. Wuxuu doonayaa inuu noloshiisa la noolaado asxaabtiisa iyo carruurta ku jirta agoonta, oo tan iyo bilowgii uu rumaysnaa. Calvin wuxuu ku laabtay agoonta. Waxyar kadib, Tracy ayaa yimid oo u sheegay Calvin inuu doonayo inuu korsado, laakiin Calvin si tartiib ah ayuu u diiday. Wuxuu hordhigay hal shuruud. Wuxuu u sheegay inuusan saaxiibkiisa Marv ka tagi karin isagoo aan kala laabin. Tracy wuu oggolaaday. Wuxuu Calvin iyo Marv u qaaday guriga. Dhanka kale, Ree waxaa korsaday qoys aad u jecel. Ugu dambeyntiina, qof walba wuxuu helay waxa uu rajeynayay: qoys, mustaqbal iyo farxad. Filimkeenu halkan ayuu ku egyahay. Haddii aad halkan nala soo gaartay, fadlan ku soo biir janaalkeena. Mahadsanid.